asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada warbixintii ugu dambeysay ee group 5 oo idinka imanaya Somali Media of Minnesota. haddii aadan weli subscribe gareynin channelkeena fadlan subscribe saar share saar haddii aad ka hesho barnaamijkan. sidaan isugu diyaarin karaa inaan codsado in la ii keeno qof aan garanayo waa barnaamijka qaxootiga group 5. sida aad nooga barateenba maalmaha dambe waxaan idiin soo gudbinaa xogaha ugu muhiimsan ee sida loo codsado group 5 dadka aad jeceshahay inaad ku keeni kartid dalka Mareykanka. fadlan akhri qoraaladeenii hore ee aan ku baahinay website-keena somalimediamn.com si aad ugu diyaar garowdo soo qaadista qofka aad jeceshahay. qaado tababarka ikhtiyaarka ah si aad si fiican ugu diyaar garowdo qaladaadkana aad u yareysid ama aad ka dheeraatid. haddana kusoo dhawo tallaabooyinka ugu muhiimsan. samee marka ugu horeysa koox gaar ah oo ka kooban 5 qof si aad uga qayb qaadato barnaamijka soo dhaweynta qaxootiga Welcome Corps. 5 qof waa inay muwaadiniin Mareykan yihiin ama ay haystaan deganaansho rasmi ah. kooxda 5 qof waa in ay doortaan isku duwe kaas oo furaya akoonka lacagta lagu shubayo buuxin doonana foomka. dib u eeg habka codsiga. si aad si wanaagsan ugu diyaar garowdo qaxootiga waxaad u baahan tahay inaad u diyaar garowdo si dhammaystiran. kooxaha kafaala qaadayaashu waa inay bixiyaan adeegyada kafaala qaadka 90 maalmood ama 3 bilood ee ugu horeysa, taas oo noqon karta mid aad u adag. tusaale ahaan waa in laga caawiyaa qaxootiga cusub in ay helaan faa'iidooyinka dadweynaha ama ceyrta loo yaqaano baaritaanada caafimaadka. waxaa laga yaabaa in meelo fogfog loo aado helitaankooda. guryuhuna waxay noqon karaan kuwa qaali ah ama ay adag tahay in la helo. waxaa jira ilo badan oo kaa caawin kara sida loo bixiyo adeegyadan. waxaadse u baahan tahay inaad barato ilahani waxa ay yihiin iyo halka laga heli karo. dib u eeg shuruudaha in qaxootiga aad keenaysid u qalmo qaxootinimada. kooxaha kafaalaqaadka gaarka ah waxay awoodaan inay codsadaan kafaalaqaadka qaxootiga wadanku ku nooliba wadanku dooniba ha u dhashay. qaxootigaas oo ku nool meel ka baxsan wadankooda kana diiwaan gashan hay-adda qaxootiga ee UNHCR ama dowladda wadanka ay degan yihiin. Sebtembar 30keedii 2023 wixii ka horeeyay buuxiyana shuruudaha u qalmitaanka. isticmaal foomka u qalmitaanka qaxootiga si aad u hubsato in shakhsiyaadka ama familka aad keenaysid ay u qalmaan dib u dejinta dalka Mareykanka. ka qaybgal ama daabo webinarka tababarka taageerada codsiga ah oo aad loogu baahan yahay. webinarku wuxuu ku siin doonaa macluumaad guud oo ku saabsan habka codsiga Welcome Corps iyo shuruudaha dhammaan kafaala qaadayaasha gaarka ah looga baahan yahay oo ay ku jiraan kafaala qaadayaasha doonaya inay codsadaan qaxooti ay hore u garanayeen. haddaba maxaa dhacaya kadib markii aad codsigaada gudbiso? codsigaada waxaa dib u eegi doona shaqaalaha Welcome Corps. waxaa soo gudbin kartaa hal codsi markiiba. haddii lagu ogolaado waa inaad sugtaa 3 bilood kadib marka ay qaxootiga aad kafaala qaadayso ay yimaadaan dalka Mareykanka mar labaad si aad u codsato codsi kale. haddii codsigaaga la aqbalo waxaa kula soo xiriiri doonaa shaqaalaha Welcome Corps. shakhsiyaadka aad doonaysid inaad kafaala qaado waxaa loo gudbin doonaa barnaamijka ogolaanshaha qaxootiga ee Mareykanka. kadib marka la dhameeyo shuruudaha codsiga oo dhan waxaa wareysi la yeelan doona dowladda Mareykanka. waxayna ku sameyn doonaan baaritaanka amniga ama loo yaqaano dabagalka. boroseska baaritaanka amniga markuu soo dhawaado USCIS waxay u gudbin doontaa ururka caalamiga ee socdaalka kaas oo ka shaqeyn doona sidii qaxootiga aad kafaala qaaday lagu keeni lahaa magaaladaada. intee leeg ayay qaadan kartaa in qaxootiga ay yimaadaan? waqtiga ay ku imanayaan waa uu kala duwan yahay. kiis walbana si gaar ah ayaa loo tixgelinayaa. filo inay qaadato ugu yaraan 6 bilood ilaa 2 sano laga bilaabo waqtiga aad gudbiso arjiga oo dhammaystiran. waxaad soo gudbin kartaa hal codsi markiiba sidii aan hore idinku sheegnay. haddii lagu ogolaadana waa inaad sugtaa 3 bilood kadib marka qaxootiga aad doonaysid u yimaado. fadlan wixii su'aal ah noo soo dhig barta commentiga ah. waxaynu uga soo jawaabi doonaa warbixinadeena kale ee soo socda. warbixintaasi waxay idinka timid Somali Media of Minnesota. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Sheekh Mursal Dhicis.